الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد walaalaha muslimiinta meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin salaamay waxaana idinku salaamay salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan rabaa hoogaa yar inaan ka soo jeediyo halkaani baraarujin yar taasoon jeclaystay inaan walaalaha muslimiinta ah aan xasuusiyo intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iga fahamsiiyey inaan walaalaha uga faa'iideeyo insha allahu tacaala walaalayaal waxaa inoo dhalatay aan dhexda ugu jirnaa ay tahay maantay 3 bisha rajab bishan rajab run ahaantii waxaa jirta bilooyin uu ilaahay aad u xurmeeyey aad u weyneeyey dadka qaarna aysan ka warhaynin ay ka mashquulsan yihiin mashquulkooda iyo adduunyadooda ay iskaga dhex jiraan ay laga yaabaa dadka qaarna bilahaasi la sheegaya 4taas bilood inaysanba xog aysan u haynin aysan ka warhayninba ayaa dhici karta marka waxaan rabaa inaan kilibkan yar aan xasuusin aan walaalaha xasuusiyo bishaan aadka u qiimaha badan walaalayaal horta waxaan ku jirnaa bisha rajab waa ashhurul xurum bishaan rajab axaadiis badan ayaa soo arooreen qaarkood aan sugnaanin ma rabo inaan hadda sii dhex galo axaadiistaasaa soo aroortay kani waa daciif kani waa makduub kani waa ma rabo inaan axaadiistaasi dhan aan gudigalo laakiin maxalu shaahidka aan u socdo wuxuu yahay haddaan idhaahdo hadda aan ka hadalno kiliibkan yar ugama kaaftoomi kari mana ugu kaaftoomi karno muxaadaraad in laga diyaariyo ayay u baahanaysaa laakiin aniga meel yar ayaan rabaa inaan dadka walaalaha muslimiinta aanan khilaaf ku jirin inaan intaasin ka buraarujiyo intaasina wax kale ma ahan bishaan rajab walaalayaal waa ashhurul xurum ilaahay suuratu tawba wuxuu tilmaamay uu yidhi ina ciddata ashuhuur cinda allahi 12 shahra fi kitaabi illah yowma khalaqa alsamaawaati waalard منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلهي وحو نو شيغي سورة التوبة بلها 12 شهرا لبئي 10 بلوت وير إلهي سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلهي حقي سوى لبئي 10 بلوت لبضاس 10 بلوت ayuu ilaahay wuxuu ka xushtay 4 bilood xadiidkii nebi moxamed ayaa inoo qeexay xajatul wadaac oo ugu dambeeyey nebiga ayaa inoo sheegay 4taas bilood 3 bilood way xiriirtaa 1 bilna gooni waay bishaan hadda aan ku jirno rajab waa bisha gooni ah oo aanan ku jirin 3 bilood oo xiriirta bishaani rajab rajab iyo dulqicda iyo dilxija iyo muxaram 3daas bilood way xiriirtaa wa amaa bishaan keligeeda waa gooni marka walaalayaal maxaan ku idhaahdaa bilahani ama 4tan bilood ilaahay wuxuuna leeyahay falaa tadlimuu fiihinna anfusakum nafsadiina ha dulminina 4tan bilood maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu weyneeyey way weyn yihiin ilaahay markuu malaa'igta abuuray ilaahay wuxuu ka doortay rususha markii bani aadamka uu abuuray ilaahay wuxuu ka doortay sidoo kale rususha ayuu ka doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta
maalmaha ilaahay wuxuu ka doortay maalinta jimcaha habeenada ilaahay wuxuu ka doortay laylatul qadr laylatul qadr khayru min alf shahr waataan aad wada ogsantihiin dhulka ilaahay wuxuu ka doortay masaajidada sidoo kale bilahan ilaahay wuxuu ka doortay bisha ramadaan iyo rajab iyo dhulqicda iyo dhulxija iyo muxaram marka walaalayaal wixii ilaahay weyneeyey waa ina anagan aan weyneynaa ilaahay maadaama asiga uu weyneeyey oo ilaahay uu doortay waa anagan inaan weyneynaa bishaani waxaa la sheegaa inay wax badan dhacdo ay dhacday ayaa la sheegaa haddayaan horey u soo sheegay inaan mawduucyadaas kale aanan dhexgelaynin laakiin meesha aniga aan u socdo maxalu shaahidka aan u socdo aan rabo inaan ka faa'iidaysto wuxuu yahay falaa tadlimuu fiihinna anfusakum meeshaasaan u socdaa afartan bilood dhexdooda ha dulminina nafsadiina bishaan dhexdeeda waxaa la xaaramtimay hataa dagaalka inaad duulaan la qaado afartan bilood dhexdooda bilahan dhexdooda hadda bish hadda aan ku jirno oo kale dembigii aad samayso waa labalaab macasiyo haddaad samayso xumaan walba aad samaysid hadday been tahay hadday xan tahay hadday tuugnimo tahay wax alaala wixii ilaahay loogu caasinaya haddaad samayso bilahaani afartan bil aan soo tilmaannay ay ka mid tahay bisha hadda aan ku jirno rajab xumaanta aad samaysid waa labalaab way kabeen tahay bishii hore lasoo dhaafay oo jamaadul uulaa iyo jamaadu thaani beenta aad sheegtay waa dembi laakiin bishaan dhexdeeda beenta aad sheegtid iyo bishii jamaadul uulaa aad sheegtay isku been ma aha way kala dembi weyn yihiin warta inaan sidaas u fahamsanaanaa axbaabi fillah walciyaadu billaah zine aad samaysay iyo macasiyo iyo xumaan ilaahay looga caasinay aad samaysay ilaahan ka magan galnay bishii jamaadul uulaa iyo jamaadu thaani iyo bishaan rajab way kala dembi weyn tahay ayadoo awalba macsiyada dembigeeda u weynaa xantana sidoo kale iyo maxaan ku yidhahdaa wixii soo raaco ilaahay loogu caasinayo sidoo kale sadaqaadka aad la baxdid iyo camaasha khayrka aad samaysid ayadana waa labalaab waa sidoo kale ayadana waa labalaab marka walaalayaal maantay walaalaha waxa aad iyo aad ghaafil loogu yahay bishaan hadda aan ku dhex jirno marka waxaan jeclaystay inaan walaalaha xasuusiyo walaalayaal bil waxaan ku jirnaa ashhurul xurum ah ka mid ah bilaha ilaahay uu weyneeyey oo xurmad ilaahay uu siiyey xurmad wax la xaaraamtimeeyey lanoo digay lana yidhina falaa tadlimuu fiihinna anfusakum nafsadiina ha dulminina walaalayaal wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo walaakina annaasa anfusahum yadlimuun laakiin bani aadamkii waa kuwa ayaga nafsadooda dulmiya bani aadamka waa ayaga kuwa nafsadooda dulmiyo laakiin ilaahay wax ma dulmiyo subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal bishaan dhexdeeda carabkaan aan ilaalino carabkaan aan ilaalino indheheen aan ilaalino gacmaheen aan ilaalino ayadoona laga rabo horta bisha rajab bilaha kale wax ma kamal dugana waa isku seemseem waa isku mid bilaha wax ma dhaanto mar walban ilaahay inaad ku caasisid markay ku banaan tahay ma jirto mar walba waa mamnuuc waa xaaraam inaad ilaahay ku caasisid subxaanahu wa tacaala zinada xili ay banaan tahay ma jirto xanta xili ay kuu banaan tahay ma jirto mar walibana waa xaaraam dhanniga xun mar walba waa xaaraam anaga wax eber naga siiyey na baabi'iyey waxaan xukunnaa shaqo aanan loo dirsanin dhanni xun ummaddan muslimka ah oo ilaahay abuurtay ayaa naga nabadgeli la carabkaasaan ku dhibaataynaynaa maantoo dhan ayagaan ku mashquulsannahay xumaantooda waan raadinaynaa
waan raadinaynaa haddana waxaan ka tabaynaynaa wax ayagaba aysan waxba ku ogeyn oysan shaqo ku lahayn. ilaahay hana asturo subxaanahu wa tacaala, dunuubteennan allah isku dhaafo. marka walaalayaal, bishaani aan taxdarno, aanan bilaha hijriga, bilaha muslimka ah aan la socono. waayo muslim ayaa tahay, dunidan ayaa lagu keenay, ciyaar laguma keenin, baashaal laguma keenin, dheeldheel laguma keenin, inaad iska cunto, iska cabto, iska seexato laguma keenin. ilaahay muxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, bismi illaahi araxmaani araxiim, alif laam miim, alif laam miim, axsiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun. ma dadka waxay u maleeyeen in layska dhaafaayo markay dhahaan aamanaa, ilaahaan rumaynay, inaan la fitnaynaynin may u maleeyeen. sidaas ma ah walaalayaal. ilaahan rumeeyey keligeed laguguma daynaayo. imtixaanaa dul taagan, su-aalaa kugu socoto, su-aal ayaa ku sugayso, xisaab ayaa kugu socoto. ilaahan rumeeyey keligeed laguguma daynaayo, intaas keligeed laguguma daynaayo, xisaab ayaa ku sugayso. maalin waxaa imaan doonto aada ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagi doontid, aadan ka dhaqaaqi doonin ilaahay hortiisa ilaan su-aalo lagaa weydiiyo. maalin ayaana sugayso aan dunidan faarujin doono, aan aadi doono ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala, qabriga inoo gelbin doono. maalintaasina waxay naga sugaysaa diyaargaroow. annagana maantay maskaxdayna waxaa ka buuxo shilinka shilin ku dar. waxaan leenahay ubadkayga yuu gaajoonin, yuu gaajo dareemin ayaan leenahay, ayaanu ordaynaa habeen iyo maalin. waxaan ilownay qiyaamihii. ilaahayna waa inoo digay. ilahi wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. xoolihiina iyo awlaadiina waa fitna. iyo idinka mashquulinin cibaadada ilaahi subxaanahu wa tacaala. alabaryigiiyo idinka mashquulinin, inaad ilaahay u hoggaansantaan iyo idinka mashquulinin, salaada jaamicada inaad ku dukataan iyo idinka mashquulinin, adkaarta iyo qur-aan akhriska iyo idinka mashquulinin. annagana xaaladeena maanta ilaah baa og. marka walaalayaal, intay goor tahay aan nafsada qabano, aan isxisaabino intaan maalinta qiyaamo la gaarin. xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasibuu. intaan la idin xisaabinin isxisaabiya. intaysan imaanin maalin aan saaxiib wax kuu tari doonin, aysan hooyay aabba wax kuu taraynin, ehel iyo qaraabo iyo cashiir ayn wax kuu taraynin. maalin intaysan kugu imaanin lagu dhahay meedka iska cafiya. maalintaasi walaalayaal intaysan nagu imaanin, intay goor tahay waa inaan diyaar garownaa, waan ilaahay ka cabsanaa subxaanahu wa tacaala. diinkeenan aan baranaa, aan raadinaa. maantay cudurdaar ma lihin. culimmadii masaajidada way fadhiyaan. moobeelada aan maanta gacanta aan ku wadano muxaadarooyinaa ka buuxo. waa seef laba afla ah. ninkii rabo wanaag buu ka helayaa, ninkii shar u adeegsan sharta wuu ka dhex helayaa. guryihiin ayay nagu soo dhexgaleen maantay inaan cilmiga aan barano. cilmi maanta ma weysanin, laakiin anagii aan u jeedin ma u socono. maanta waxaana laga rabaa walaalayaal inaan u diyaar garowno maalinta qiyaama. cilmiga aan barano, guryaha noogu soo galay, youtubada nooga buuxaan, aanan ka faa'iidaysano, culimmada aan ka faa'iidaysano. marka maalintaasina hala xasuusnaado maalinta qiyaamaha.
bilooyinkaana aan barano ashhurul xurum aan barano. marka bishaan rajab walaalayaal acmaal fara badan ayaa la sheegaa inay soo aroortay. salaad la dukanayo iyo soon la soomay iyo ayaa la sheegaa, laakiin axaadiistaasi qaarkood oo nabiga kama sugnaanin salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. axaadiis badnaankooda ma sugna. axaadiis hal xadiis ayaa la sheegaa inuu sugan yahay. ama inta kale ku soo aroortay bisha rajab qaarkood waxaa la leeyahay qaar waa been abuur, qaarna waxa waaye wax kama jiro, qaarna waa la daciifiyaaba. marka insha allahu tacaala walaalayaal bishaani in badan aan dadaalno oo carabkeena, indheheena, dhegaheena, gacmaheena aan ka adkaano, oo intaan dadaali karno oon dadaal samayn karno walaalayaal aan dadaal samayno, aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala. marka bisha aan ku jirno waa ashhurul xurum, bil ilaahay weyneeyey, ixtiraamay, xurmeeyey ayaan ku jirnaa. marka anagan aan dadaalno, aan bishaan xurmayno, aan carabkeena iyo gacmeena iyo dhegeena aan ka adkaano ayaa loo baahan yahay. marka insha allahu tacaala in badan aan dadaalno. wixii aan gafay famin nafsi washaytaan, wixii aan asiibayna ilaahay xaggiisa. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.